بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال ومالك سيداد iyo barnaamijkeeni bisha barakaysan Ramadaan ahkaamteeda aadaabteeda iyo siyaalaha qofka muslimka ah uga faa'iideysanayo. kulankan maanta insha Allah taala waxaynu ku soo qaadan doonaa waxyaalaha soonka buriya ayaynu insha Allah taala ku soo qaadaynaa. 8 qodob ayaynu ka dhigaynaa waxyaalaha soonka buriya. waxa uu horeeya jimaaca iyo gogosha ama ha ahaado jimaac iyo gogol xalaal ah oo labadii isqabay dhexmara ama ha noqdo jimaac iyo gogol xaaraan ah oo zina iyo dambi dheer yahay ha noqdo. mar haddii gogoli meesha timaado iyo jimaac soonkii uu burayaa. nusuusta quraanka iyo sunnadu saasay ku tusinayaan, culimada muslimiintuna way isku waafaqsan yihiin in soonkii ku burayo. waxaa qodobka labaad oo soonka burinaya oo kaa ku dhow in biyihii taranku ku soo baxaan si qofka doonistiisa iyo ikhtiyaarkiisa ah oo ayaguna jimaaci iyo gogoshii bay la mid noqonayaan. biyihii taranka inuu asagu iskaga keeno gacantiisa maalan istimnaaga waxa la yiraahdo ama siigaysiga ama maaragtay xaaskiisii uu la sameeyay mudaacaba iyo hordhaci gogosha kadibna sidaa biyihii kaga yimaadaan ha noqdo. biyihii taranka asagu qofku uu iska keeno soonkii asaguna uu burinayaa oo jimaaci ayuu la mid yahay xagga burinta soonka. qodobka saddexaad oo soonka buriya waa inuu qofku wax cuno oo wax cabo. soonkii uu burinayaa hadduu waxna cuno waxna uu cabo soonkiisi uu buri. qodobka afraad oo soonka burinaya waa wixii cunidda iyo cabitaanka la midka ahaa ama la macnaha ahaa, taasoo laga wado waxaa jira waxyaalo aan afka laga cunin lagana cabin laakiin macnihii cunitaanka iyo cabitaanka bay leeyihiin. waxaa ka mid ah irbadda qofka lagu mudo ee booskii nafaqada iyo cuntada u galaysa ama booskii biyaha u galaysa ayaa ka mid ah. waxaa ka mid ah in dhiig lagu shubo iyo waxyaalaha la midka ah. waxyaalahaasi cunid iyo cabid toosa maaha laakiin cunid iyo cabidii bay la xukun yihiin oo soonkii way burinayaan. qofkana waxay u galayaan booskii cuntada iyo cabitaanka. qodobka lixaad waxyaalaha soonka buriya ah waa qofku inuu iska matajiyo oo asagu mataga uu kas isaga keeno soonkiisi uu ku burayaa oo soonkii uu burinayaa. waxaa taa macnaheedu yahay hadduusan asagu mataga iska keenin matagii soo dhaafo soonkiisi ma burayo, laakiin hadduu asagu iska keeno soonkiisi waa mid buraya weeye. qodobka toddobaad oo soonkii burinayaay waa in qoftii dumarka ahayd ay hesho dhiiggii caadada ama dhiiggii dhalmada. haddii dhiiggii caadadu yimaado ama dhiiggii dhalmadu au yimaado soonkii gabadha markaa waa ka kac. xataa haddii maalinta ilbiriqsi ka hor intaan qoraxdu dhicin haddii dhiiggii caadadu yimaado ama kii dhalmada u yimaado soonkeedii wuu buray ayay ka dhiganta. ayadu dembi kuma laha laakiin dee soonka maalinkaasi uma jiro. qodobka 8aad ee u dambeeya waxyaalaha soonka buriya waa riddatu can alislaam walciyaadu billaah. qofku inuu diintii ka baxo weeyaan. hadduu qofkii gaaloobo diintiiba ka baxo soonkiisi wuu buray. marka dee camalkiisi oo dhan baaba riddada burinayee waxaa ka dhalanaysa haddii maalan maalintii uu gaaloobo oo diinta ka baxo kadibna uu diintii ku soo laabto oo ashahaato oo dib islaamkii ugu soo laabto soon maalinkaa u jiraayay ma jiro. soonkiisi waa buray. hadhow tana qadiya inuu dib u soo qaldayaa laga rabaa. waxyaalaha soonka buriya ee aynu soo sheegnay markay soonka burinayaan waxaa la rabaa 3 arrimood in la helo. haddaan 3 arrimood la helin soonkii ma burinayaan. waa marka laga reebo alxayd wanifaas iyo riddada. inta kale waxyaalaha aynu soo sheegnay markay soonka burinayaan waa in la helaa 3 shardiya soo socota. shardiga koobaad cilmi waa inuu jiraayo qofku waa inuu waxaan og yahay uusan jaahil ka ahayn.
hadduu xukunkiiba jaahil ka yahay uusan aqoonin waxaan inuu soonka buriyo isla markaana uu sameeyo soonkii kama burayo waa qodobka labaad ikhtiyaar waa inuu jiraa waa inuu asagu doortay haddii lagu qasbo wixii lagu qasbay soonka kama burinayaan cunitaan iyo cabitaan iyo jimaac iyo wixii la midka haddii lagu qasbo soonkiisa ma burinayaan qodobka u dambeeya saddexaad waa inuu xasuusnaa markuu sameynaya waxa kan hadduu asagoo hilmaansan sameeyey oo ama waxbuu cunay waxbuu cabay jimaac buu sameeyey wuuna hilmaansanaa oo soonkii ma xasuusnayn iyaduna markaas soonkiisa ma burayo insha allahu tacaala kulankan maanta intaasaynu ku daynaa wallahu aclam sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed